tan maantuna aanay waxba ka duwanayn shacbiga iyaga annagaa xil naga saaran yahay inaanu u galno meel kasta oo dantooda iyo ta qarankuba ku jirto dadkuna way idin barteen oo inkastoo aad dantooda iyo ta qarankuba ay ku jirto dadkuna way idin barteen oo ka ilbaxe shuguxda aada ruuxdaan markaad dantiina ka dhex weydaan hawl kasta oo danta ummadda ah siyaasiyiinta xisbiga waddani ee tviyada la soo taagan ma dawlad baynu nahay ma dawlad baa jirta waxaanu leenahay dawlad baa dawlad kale heshiis la gasha ummadda jamhuuriyadda somalilandna meel kasta ay joogaan way og yihiin inay dawladii jirto waxaan leeyahay dawlad baanu nahay ee idinku haddii aydaan aaminsanayn dee halka qalbigiinu jecel yahay taga malaha sida laydinku xanto waaba xamare jamhuuriyadda somaliland waxa ay ka mid tahay dalalka ku yaal mandaqadda gacanka carbeed iyo kuwa geeska africa ee jabuuti ka mid tahay oo dalkooda saldhigyo kala duwan ka siiyey dalal fara badan oo jira iyagoo mar walba ka eegaya dhinaca danta iyo maslaxadda dadkooda iyo dalkooda somalilandna dalalkaas kama duwana haddii ay jabuuti tahay haddii ay baxrayn tahay haddii ay philibiin tahay haddii ay jabaan tahay iyo dalal kale oo fara badan oo adduunka ka jira oo saldhigyo ay ka jiraan iyagoo eegaya dantooda iyo maslaxadooda xisbiga waddani ee mucaaridka ahi wax alla wuxuu ka cawdaa meeshan ma yaaliin wax alla wuxuu ku yidhaahdo ummadda soo baxa oo mudaharaada ama dagaalama wax yaalla maaha ilaa iyo haddii aanay dantooda hoose ahayn inay dalkan jamhuuriyadda somaliland ee ku caanamaalay nabadgelyada iyo wanaagga qas iyo khalkhal iyo maalmihii madoobaa ay dib ugu celiyaan ila waa kuwa ugu yeedhaya mar walba soo baxo dagaalamaya sababtaanu saa u leenahay waxa weeye haddii aanay wax kala wadin xildhibaanada tviyada ka qaylinaya ee waddani taageersan ee la hala dagaalamo ee ummadda doonaya inay isku dhinto haddaanay iyo madaxda xisbiga waddani iyo kuwa taageersan ugu baaqaya jamhuuriyadda somaliland inay dagaal gasho waxaanu leenahay wax laga cawdaa meesha ma yaalin madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland uu garwadeenka ka yahay axmed maxamed maxamuud silaanyo waxay keenayaan heshiiska saldhigga berbera madaarka berbera maxaan ku dhahdaa golayaasha xaqa u leh in la hor keeno waxay madaxweynaha iyo dawladdu ay u soo bandhigaysaa ummadda jamhuuriyadda somaliland meel kastoo ay joogto heshiiskaasu waxa uu ka kooban yahay iyo nuxurkiisu wuxuu yahay waxaana ay u taallaa diidmadiisu iyo ansixintiisu golaha wakiilada iyo ka guurtiga waxaanu leenahay intuu xildhibaanadu ay kicinayaan ummadda
hawl baa sugaysay heshiisku wuu hor imanayaa intuu ummadda leeyahay kaca oo dagaalama ama mudaharaada xisaanada iyo xilka uu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u hayo ha guto oo ha ka qayb galo sidii maxaan ku dhahdaa loo ansixin lahaa heshiiskaas ama loo diidi lahaa waxa alla waxaanu shakiyaanu ka qabnaa haddaanu nahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee loo igmaday rag suuqa jooga looma igman oo wax ismoodaya talay ku leeyihiin runtana waxay tahay marnaba looma igman nin laanu dagaalano Soomaaliland filinka hore u gashay filinkaas iyo maalmaha madow hore u gashay wax laga aqbalayo iyo wax laga dhageysanayo midna maaha labada gole ayay u taallaa ninkii doonayay inuu ka soo horjeedo waxay tahay sida muwaadinimadu ku jirto sida Soomaalilandnimadu ku jirto sida adduunka oo dhan ay ku jirto marka wax yimaadaan waxay xaq u leeyihiin inay ka howlgalaan golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida laakiin xaq uma leh nin qura oo jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool oo xaq u leh ma jiro inuu ummadda yiraahdo dagaalama ama inuu ummadda maxaan ku dhahdaa ay xukuumadda iska horkeeno normal qof qura madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dalkan isaga loo igmaday iyo madaxweyne ku xigeenka anaguna kaalayaashiisii baan waxa ugu weyn ee madaxweynaha shaqadiisa ugu weyn waxa weeye cadaaladaas markay dhacday iyo markay soo baxayso inay jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgeliyo laguna seexdo laguna soo tooso ka doonaya inuu khalkhal ka rido ku suurta gelimayso shuruuc muddo ku leeyahay adigoon xisaanad ku gaban adigoo nin weyn oo la yaqaano maxaan ku dhahdaa Soomaaliland taqaalo ku gaban haddaad dalkan khalkhal gelinayso iyo nabadgelyadiisa shuruucda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u yaala ayaa maxaan ku dhahdaa laga qaadaya saldhigan ciidan ee madaarka berbera ee ay naga codsadeen dalka Imaaraadka ee aynu wadaagno dhaqan diin iyo xiriir ganacsi ma aha mid dalkeena lagu qabsanayo oo ah beenta kale ee mucaaradku ku beer la xawsadaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland balse waa dariiq inaga saaraya go'doonka aynu ka nahay caalamka mar haddayna aqoonsi weli haysan inoo soo jiidaya maalgashi baaxadli furo u ah aqoonsiga saldhiguna wax kale ma ahee waa iskaashi dhinacyo badan faa'iidooyinka ku jiraana oo aad u ballaaranna ay ka mid yihiin dhinaca nabadgelyada inay jamhuuriyadda Soomaaliland nabad ku waarto waxa uu saldhigu faa'iido weyn ka tarayaa amnigaas waxa uu kor u qaadayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qalabeyntooda iyo tayooyintooda waxa ku jiro kale tababaro casriya oo ay ciidamadeenu ka helayaan iyo qalabkii iyo teentii nooc ala nooc ay doontaba ha ahaatee waxa ku jirta ilaalinta xeebteena dheer 850 kilomitir ee aynaan awood aynu ku ilaalino aynaan lahayn waxaanu ku ilaalinaynaa oo ay ku jirtaa khayraadka badeena ee maanta adduunka oo dhan inta yimaadaan ay gurtaan
oo halkii khayraadka baddeenu uu ku dhali jiray oo ah gacanka badda cas inta ugu sarreysa ilaa Allah asqoray ilaa maxaan ku rahdaa sayla maanta ay noqotay meel adduunkiisa ugu yimi generationka soo socdaana carruurta aad dhali doontaan carruurta ay dhali doontaan ama carruurta aad dhalaysaanba haddaan wax laga qaban aanay maxaan ku rahdaa aanay ugu imanayn meel bad fayow ama bad khayraad leh waxaa dhici kartaa ilaan ma ilaalin karne in lagu aaso wax noloshayna oo dhan baabi'iya sun ay ka mid tahay nuclear wax ka mid waa ka warhaysaan haanta berigii soo caariday muddada badan lagu murmiyey marka xeebta ilaalinteeda waa ka qayb weyn maxaan ku rahdaa inaynu khayraadkeena iyo mareenkeena jidkeena aynu marsano waxa maraakiib maraya aynu dee weydiino sida adduunyada badaha kale maxaan ku rahdaa loo mara dhaqaalaheennana wax weyn ka taraysa waxay ka taraysaa wax weyn la dagaalanka budhcadbadeedka iyo argagixisada waxaa kaloo wax ka taraysaa dhinaca dhaqaalaha qodobka ugu weyn wax ka taraysaa waxa weeye dekada berbere DB lagu wareejiyey haddaanay helin waxaynu u qalab samaysanaynaa waxa weeye boqolka milyan ee Ethiopia ee dhinaca inaga xiga haddaynaan waddo weyn oo baabuurteedu isku dhaafaan aan la samayn dekada berbera halkaynu la doonayno noqonayso qodobka ugu horeeya la sameynaya waxa weeye wadada isku xidha berbera iyo wajaale ee berbera corridor loo yaqaano oo lacagta lagu qiyaasay ay tahay 260 milyan ilaa 300 milyan waa inta budgetka Somaliland uu yahay aynaan awoodi karin ayaa maxaan ku rahdaa ay ku jirtaa oo maxaan ku rahdaa khasab ay tahay inaynu ka faa'iideysano waxaa ku jirta shaqo abuur ballaaran oo laba u kala baxa mid toos ah oo ay qaadanayaan dabadeedna ay ku qaadanayaan ay ka shaqaalaysiinayaan dalka imaaraadka carabta waxyaabaha nooca ay u kala baahan yihiin waxaa kale oo ku jirta qayb ay halkan ka qaadanayaan shaqaale badan oo ay halkan ka qaadanayaan bayska oo ka shaqayn doona labadubana ay wax ka tarayaan shaqa la-aanta ballaaran ee dhallinyaradeena jamhuuriyadda Somaliland ee meel kasta joogta haysata iyo kuwa ka waaweynba waxay wax ka qaban doontaa tamarta hadday tahay dhinaca solarka iyo hadday tahay dhinaca cadceedaba waxaa kaloo wax ka qaban doontaa tacliinta sare ama waxbarashada waan ujeedaa oo laba iyaduna u kala baxda qayb ah iskuulo farsamooyina oo maxaan ku rahdaa la inoo dhiso iyo qayb ah scholarshipyo maxaan ku rahdaa inay siiyaan oo imaaraadka ugu dhaanay ardayda maxaan ku rahdaa ka baxda jaamacadaha aanay siinine inankii jaamacad ka soo baxa si uu masterskiisa ama PhD ee adduunyada kale xiriir kale leeyihiin laftooda ay maxaan ku rahdaa inaga maalgelinaya waxaa kaloo iyadana ku jirta maalgashi aad u ballaaran oo markay dekada berbere oo DB World iyo saldhigu ay garabsadaan waxaa hubaala in adduun weynaha odhanayaan Somaliland waa meel aamina waxaa hubaala inay adduun weynaha odhanayaan meel kasta aynu maalgashano mar haddii dekada berbere la gelinayo 500 milyan ama ka badan saldhiga militariguna lacag ka badan inta uu keenayo waxa hubaala in adduun weynaha inta kalena ay odhanayaan aan maxaan ku rahdaa gashano marka shaqo abuurkii iyo maalgashi aad iyo aad u fara badan ayaa maxaan ku rahdaa ka abuurmaya waxa kale oo ka abuurmaya ganacsi saldhigu wuxuu la imanayaa services ama adeegyo badan uu baahan yahay
adeegyada ummadda jamhuuriyadda Somaliland baa qandaraasyo u soo qoranaysa oo maxaan ku raahdaa ay oranaysa aniga sameynaya adeeg gacankaas iyo caynkaas iyo caynkaas aniga sameynaya adeeg gacankaas iyo caynkaas adeeg gacankaas iyo caynkaas marka waxa ka abuurmaysa shaqo abuurkii oo dhinac kale hadana ka socda iyo qandaraasyo waaweyn oo maxaan ku raahdaa iyaguna maxaan ku raahdaa ka socda waxa kale oo ku jira dhinaca caafimaadka dhakhaatiir gobolada iyo degmooyinka iyo dhakhaatiir ay soo raacin doonaan oo iyaguna tababari doona maxaan ku raahdaa dhakhaatiirteena iyo maxaan ku raahdaa kuwa la socda walaalayaal haddaa bahda saxaafadda tihiin iyo ummadda jamhuuriyadda Somaliland meel kasta ay ku nooshahay waxaanu nahay dal aan la aqoonsan 25 sanadood sugayay aqoonsi oo aan weli helin laakiin aynu ku joogno wadadii ama dhabadii aynu ku heli lahayn aqoonsiga waxaanu nahay dal awoodiisu aan ilaalin karin xeebta inta leeg yaan maxaan ku raahdaa aanu leenahay waxaanu nahay dal weli Soomaaliya ay sheeganayso wax kasta dhici doona tahayna in loo diyaar garoobo hadday ciidamada dhiskeeda tahay iyo qalabeynteeda iyo maxaan ku raahdaa tayeeteeda waxaanu nahay dad iyo dal shaqo la'aantu ay baahis aad iyo aad ay ugu baahsan tahay oo aad iyo aad ay ugu balaaran tahay inagoo sidaas ah oo run ku wada hadlayna dawladdii ummadda jamhuuriyadda Somaliland ay u igmatay aanu ku wada hadlayno madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo xukuumaddiisa waxa ka go'an waxa la wixii lagaga bixi karo waxyaabahaas aan soo sheegay oo dhan in tallaabadii loo mari karo loo sameeyo haddii aynu dhageysano wararka qaarkood waa yaabisa moogtay haddii aynu dhageysano kuwa durbaanka hooga iyo dagaalka iyo beenta iyo caydu ay isu saaran tahay xisbiga mucaaradka ee wadani oo aan ka xishoonayn waxay barmagedadu tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa la waxay doonaan ninkii qarankan markii la xoreynayay waqtigii ugu dheeraa chairmanka SNM aha maantana ah damalka jamhuuriyadda Somaliland oo dhammaan ku harsan tahay goostana oo yiri war anigu waxaan maanta waqtigaas intii aan wadankan qabanayay waan qabtay cid cusub ha timaado nimanka waxa loo wixii afkooda ka soo baxa iyo xaaskiisa iyo cirdigiisa waxay doonaan ku oranaya waddanka Somaliland ma aha waxba la kala xaraa waxyaabo barmageedada jirta oo aanan iyaguna iyaga ku oran karin iyaguna aanay ummadda jamhuuriyadda Somaliland aanay u quuri karin waxay u eegyihiin nimanaan dalkan u naxayn iyo dadkan aan u naxayn nimanaan cid alle cid ay ixtiraamayaan jirin waxa u muuqdaa inuu kursigaa yahay kursigaasna aan dagaal lagu gaadhin iyo soo baxay ee lagu gaadho ummadoo la kasbado iyo mashaariic iyo nidaam
waxaan leenahay ragga waxaas ay taladoodii maanta noqotay masiirkoodii uu noqday cay iyo dagaal iyo kicin waxaanu leenahay ummadda jamhuuriyadda somaliland meel alle meeshaad joogto diida haddii maanta la yidhaahdo 10 bilyan baa la siinayaa oo daalar jamhuuriyadda somaliland oo laga ansixiyo jamciyadda qurumaha ka dhacaysa ama dal yidhaahaan iyo bay odhanayaan inuu diidni waayo waxay odhanayaan kulmiya wax ku helayay siilaan iyo musabixi ma faadeerata waryaade inta noloshoodu waa intaa wax alla wixii dalkan faa'iido u ah wax alla wixii dalkan faa'iido u ah iyo diidi aan wax alla wax ku salaysantay jirin maxaa xiga kacaa iyo dagaalamay waxaan leenahay diida haddaad ummadda jamhuuriyadda somaliland tihiin noocaas maaha waxaynu ku barbaarnay maaha waxaynu ku caanamaalnay maaha wax qaranka jamhuuriyadda somaliland looga fadhiyo saldhigaas madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland baa ummadda la hadli doona markuu labada gole la hadlayo ummadda jamhuuriyadda somaliland buu la hadlaya waxaanu leenahay dhegaysta madaxweynihiina danta qaranka jamhuuriyadda somaliland baa ku jirta saldhigaas kan iminka ma ahee ka carruurtay soo dhali doonaan baa ku xigta xaalna waxaan mashaariic tirinayay waddada ceergaabe dhamaadka ku dhow airportka maanta maxaan ku dhahdaa jira wax alla wixii lasoo qaaday way kasoo horjeedaan marka ugu horeysa xitaa odhan maayaan intay dirsaan war maxaynu ka yeelnaa ama maxaynu samaynaa ama sidan waxaan leeyahay annagu waxaanu siinaynaa waxa ay mudan yihiin oo ah waa muwaadiniin jamhuuriyadda somaliland ka mid a qaarkood madaxda qarankay ku jiraan annagu caynay nagama geeyaan waxaanu qarankii ummadda u haysana waa ummaddaanu soo bandhigayna waxaan kaga baxayaa ummadda jamhuuriyadda somaliland waxaan leeyahay durbaankaas danta la mooday ee sida xun loo garaacayo haddii la garaaco aan somaliland lagu lulanayn yaa la yeeli waxaan kaloo leeyahay golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland danta ummadda ayaa ku jirta in saldhiggaa la sameeyo qof kastoo jamhuuriyadda somaliland joogow xildhibaankaaga la hadal xildhibaankaaga la hadal u sheeg inay dantu ku jirto u sheeg inaanad aqbalayn waxa ay ku hadlayaan u sheeg inaad madaxweynaha iyo dowladda aada la socotaan waxaan kaga baxayaa intaa ku darayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland wuu hambaliyeeyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo wuxuu kaloo ku hambaleeyey nabadgelyada doorashadaas ay walaalaheen aynu jaarka nahay labada dal ay doorashadaas ugu dhacday waxaanu leenahay haddii farmaajo yimaado iyo haddii mid cambe loo bixiyaa yimaado farmaajo waa jiiska la cuna ma garataan haddii nin cambe loo bixiyaa yimaado iyo haddii nin kale oo muus loo bixiyaa yimaado iyo haddii kaleo nin magac kale loo bixiyaa yimaado waxa la wax siyaasadda somaliland iska bedelayaa ma jirto waa ummad tashatay masiirkeeda meel dhigtay haddii somaliland wax iska bedelaan madaxdeeda iyo haddii soomaaliya wax iska bedelaan ummadda jamhuuriyadda somaliland waxay u taagan tahay sidii madaxweynuhu yidhi mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo hadday 100 sannadood qaadanayso inay gooni isu taagaan oo ay noqdaan dal madax bannaan
السلام عليكم ورحمة الله. وحير دقيستا أنا أيد وصينية قلة الجوجية والله دقيستا أنا أيد وصينية قفلوا بقى إسكت شيء. magacaygu waa Bedri Koosar waxaa ka socda telefishinka Star مسؤولية بدن أي عارض تصدق ملتري كهالله قارحان وحدات قال لفظ هذا وحصل حسب معارض كوطني مسؤولية تاسي وقار كود كتيران إذا ما خبرت ولا عارضا وحيسوي الوقتين خطر تصدق أسلي هدي أي كدجين محاكرين كتل ماتو في النوضيع يا شيء أنا جماعة هوريين وقتي بدريوي يا قدبوا راعيو فيديو يوعي قارلين أنا وكبات المامن يا جالس كتل المامن سوق الله بنكوي منايا. هذول. وسيم مقعد يعني دول صح. إن بدنا نحصل فائدة من السنة لكن كفاية سليقة من التري الإمارات. سؤال شيء واحد هاي. دولة أن سفارة السنة كل هاي أو وكيل كل هاي أن اعتراف سنين. وإذا نتمد لقى أقوسين هاي. سببتها هذا صار لكوسين سامحت. وما نقولش كيتش. ها ميل بين كوجرينا مياحا أدون كودن وحن ما تقدر نشرحه وعوي تلكن يدتكن وحيدوني يعني صاحب لذي عشان الدنيا تلكن يدتكن وحيدوني يعني قوني ذا نيتاجي سيدي بعيد اللي تشوجا أي كم حنقول هذا كبحان تلكن يدتكن وحيو بهيه المالقشي تلكن يدتكن وحيو بهيه أدون وين دلال دفاع سياسة سومالي لان المهيد يوديجيدو mid walba uu ku naaloonayo oo ah inay madax banaato haddaanad saaxiib lahayn ma afarteen reer laabtay sutuma i'tiraafka keenaysa Cabdiwaliyow adeer keeni maysa adduunyada inuu ka doonaynaa i'tiraafka afarta reer midba meel istaagay oranayo aniga reer hebel ah waxa weeye dalalka adduunka ayaanu ka doonay madaxweynuhu ka doonaya i'tiraafka dalalkaas ayaa maxaan ku raahdaa i'tiraafkeenu ku xidhan yahay sida aynu uga gashano iyo sida aynu ula saaxiib adduunyadu waa masaalix adina waynu saqoonsanahay maxay kula gelayaan heshiisyada 500 milyan iyo 600 milyan hadaan dal lahayn ay i'tiraafsan yihiin waxay kula gelayaan dal jiraa tahay dad jiraa tahay nabadgelyada iyo waxa dhigatay dalal badan oo aqoonsi lahayn baa jira waxaynu doonaynaa adduunku danuu kala leeyahay danteenu waynu fidinaa oo adduun weynaha gaarsiinaa iyaguna danbay naga leeyihiin wala ruqsinaya soo magacaygu waa Faysal Soomaali KTV oo ka soo dhaafay Tuusil qodobay ogsanayeen xisbiyada mucaaradka gaar ahaan wadani qodobadii jawaabtooda si rasmi ah ma dulstaagay tusaale ahaan saldhigga military waxa ku doodaysay in ruushku hore ugu ahaa fariisin waxay iyagu yiraahdeen ciidamo mayn fadhiin xiligaas kaliya waxay samaysteen base Djibouti waa soo qaateen Djibouti waa dal ixtiraafsan yahay qodobadaasi si toos u abaarayay bulshada shacabka Soomaaliland afayeenka xukuumadda tahay ee ku daawanaysa su'aalo badan bay isweydiinayaan oo qeex maxay ku kala duwan ruushku xiliga uu saldhigga ka dhigtay berbera iyo